maamulka cusub ee Mareykanka ayaa laga warsugayaa sida uu tallaabo uga qaado boqortooyada Sacuudiga iyo dhaxal sugaha awoodda isbiday ee Mohammed bin Salman iyadoo dhowr jeer uu Joe Biden sheegay inuu la xisaabtami doono dadka ku xadgudba xuquuqda aadanaha. Haddaba maxay tahay sababta uusan Mareykanka u cinqaabi karin Mohammed bin Salman? Su'aashan jawaabteeda ayaan rabnaa inaan maanta barnaamijkeena xogdoon ku falaqayno. Fadlan intaanan barnaamijka gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid iyaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. Waayahay, sirdoonka Mareykanka ayaa dhawaan soo saaray warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii wariye Jamal Khashoggi oo dad badan ay ku eedeynayaan Mohammed bin Salman oo ah wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga. Jimcadii waxa uu madaxweyne Biden qadka telefoonka kula xiriiray boqor Salman bin Abdulaziz waxa uuna uga digay cawaaqibka ka dhalan kara warbixin ku saabsan qaarijintii Khashoggi. laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa hortaagan ama Mareykanka ku hortaagan inuu cinqaabo Mohammed bin Salman ama uu cunaqabateeyo dalka Sacuudiga. BBC da laanteeda luqadda Carabiga ayaa soo xigatay warbixino ay mowduucyo ka diyaariyeen qaar ka mid ah wargeysyada afafka dhaadheer ee caalamiga ah kuwaasoo looga hadlaya waxyaabaha ka hortaagan in lala xisaabtamo bin Salman uu gacanta ku haya howl maalmeedka boqortooyada Sacuudiga inkastoo taajka boqorka uu xiran yahay weli aabihiis oo hadda ah 85 sano jir. taniya markii uu xilka qabtay Biden wargeysyada waaweyn ee caalamka waxay diiradda saarayaan wajiga uu yeelan karo xiriirka Sacuudiga iyo maamulka cusub ee la wareegay aqalka cad. Falaqayaasha u dhuun daloola arrimahan ayaa sheegay in marka diblomaasiyiinta arrimaha dibadda u qaabilsan Mareykanka loo soo gudbiyay qayladaan ka dhan ah Sacuudiga ay qof walba xusuusinayso in boqortooyadu aysan xulufo kaliya la ahayn Mareykanka balse ay yihiin sidoo kale saaxiibadan wadaag ah. laakiin mas'uuliyiinta Sacuudiga dhan kale ayay arrintan ka arkaan sida ay sheegeen khubaradu. waxay aaminsan yihiin in Mareykanka ay ka haystaan ballanqaad ku saabsan in iyaga laga qaato saliidtaas beddelkeedana la siiyo ammaan. arrintaas oo soo jirtay tan iyo markii shirkadii ugu horeysay ee Mareykan ah ay qandaraas saliid ah la gashay Sacuudiga sanadkii 1930. wargeyska The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in aqalka cad uu iska difaacayo eedeymo la xiriira in xukuumadda Washington aysan cinqaab ku soo rogi karin dhaxal sugaha awoodda badan ee Mohammed bin Salman. maamulka Biden ayaa sheegay inuusan ku degdegayn in cunaqabatayn uu duldhiga bin Salman iyagoo marmarsiyo ka dhigtay in arrintan si hoose loo xalliyo oo isfaham wax lagu dhameeyo. wariye ka tirsan The Guardian ayaa sheegtay in waraysi ay la yeelatay gabadha afhayeenka u ah aqalka cad ee lagu magacaabo Jen Psaki ay ku taageertay waraysigaas go'aanka Washington ee ah inaan si toos ah loo bartilmaameedsanayn Mohammed bin Salman. waxaa jira ayay tiri qaabab badan oo lagu xaqiijin karo in arrinta Jamal Khashoggi mid la mid ah aysan dib dambe u soo noqon. sidoo kale waxaan fursad siinaynaa ayay tiri in boqortooyada iyo annagu aan isfaham wax ku dhamayno. xafiiska Biden ayaa dhagaha ka furaystay dhaleecayn xoog leh oo uga imaanaysa hogaamiyaal ka tirsan xisbiga talada Mareykanka haya ee dimuqraadiga kuwaas oo doonaya in tallaabo degdeg ah laga qaado Sacuudiga iyo dhaxal sugaha awoodda isbiday ee Mohammed bin Salman. khubaradu qaar waxay qabaan in Biden uu soo saari doono go'aano laakiin madaxweynaha Mareykanka ma uusan cadayn waxa ay go'aanadaas noqon karaan marka laga soo tago in Sacuudiga uu xaqiijiyay in shuruucdii ka dhaxaysay Mareykanka iyo boqortooyada ay wax iska bedeleen. telefishinka CNN ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa isagoo soo xiganaya ila wareedyo xog ogaal ah tabiyay in maamulka Biden uusan miiska u saarnayn qorshe ku aadan cinqaabista Mohammed bin Salman iyadoo sababtuna ay tahay in Mareykanku uusan doonayn inuu khatar geliyo joogistiisa Sacuudiga. waxaa intaas sii dheer in aqalka cad uusan weli waaxda arrimaha dibadda ka codsan inay soo gudbiso nooca ay noqon karto cinqaabta Mohammed bin Salman iyo guud ahaan Sacuudiga. ugu dambeyn waxaan dhihi karnaa arrinta ku saabsan dilkii Jamal Khashoggi Allah u raxmadee waxay noqotay mashruuc aan dhammaanayn oo qolo walba ay danteeda ka eeganayso. sida cad waa la og yahay adduunku waa ka dharagsan yahay in dilkii Jamal Khashoggi uu ka dambeeyay Mohammed bin Salman iyo xulufadiisu. waa la og yahay in Sacuudiga uu dilkaas ka dambeeyay balse arrintan soo noqonaysa ee Mareykanku ah in Mareykanku ku gorgortamo Mohammed Jamal Khashoggi Allah u raxmadee oo ka dhigto wiil uu dhalay oo diyadiisa uu qaado karo hadduu rabo iska day karo. dabcan ayaduna waa arrin kale oo la filayay. ugu dambeyn waxaan leenahay Mareykanku oo walba Sacuudiga waxa uu ahaa sac u maalo. horay ayuu shidaal u siiyey asna u yiri Mareykanu ammaan isii. bal maantana waxaan ka warsugaynaa
waxa uu kale oo ku rikaatay doono. waayahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid iyaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. waad ku mahadsan tahay la joogaaga.